Kulanti wanaagsan daawadayaal, waa mar kale iyo muuqaal cusub oo xiiso leh. Muuqaalkan maanta waxaan ku soo qaadanayaa magac bixinta carruurta, gaar ahaan wiilasha. Islaamku wuxuu ihtimaam siiyey dhallaanka tan iyo marka nafta lagu abuuro, waxa uuna u jideeyey xuquuq badan, waxaana ka mid ah xuquuqdaas xaqa in ay noolaadaan nolosha, mana bannaana in lagu xadgudbo dhallaanka. Sidoo kale waxaa ka mid ah xuquuqdaas xaqa ah in loo bixiyo magac wanaagsan, taasoo lagu waajib yeelay waalidiinta. Haddaba muxuu Nabiga nabadgelye naxariis korkiisa ahaatee nagula dardaarmay inaan u bixinno carruurta? Maxayse yihiin magacyada ugu wanaagsan ee Allah subxaanahu wa tacaala xaggiisa loogu jecel yahay? Yayse yihiin dadka wanaagsan ee mudan in loogu magac daro carruurta? Maxayse yihiin magacyada aan wanaagsaneyn oo ay tahay in aan loo bixin carruurta? Su'aalahaas iyo jawaabahooda kaga bogo daqiiqadaha soo socda. Hase yeeshee daawade, haddii aad ku cusub tahay channelkayga, waa codsi amar maahan, subscribe saar si aad u daawato ugana faa'iido muuqaalada soo socda, anna ay dhiirigelin iigu noqoto subscribe-kaaga. Aan ku bilownay, wuxuu Nabiga nabadgelye naxariis korkiisa ahaatee axaadiis saxiixa inoogu sheegay magacyada wanaagsan ee Allah subxaanahu wa tacaala xaggiisa loogu jecel yahay, kuwaas oo loo bixiyo carruurta. Waxa uuna yidhi rasuulka nabadgelye naxariis korkiisa ahaatee, magacyada Allah subxaanahu wa tacaala xaggiisa loogu jecel yahay waa Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan. Intaa kadib waxa ayana fiican in carruurta loo bixiyo magacyada lagu daraayo magaca Allah subxaanahu wa tacaala, sida Cabdilcasiis, Cabdiraxiin, Cabdimaalik, Cabdisalaan iyo kuwa la midka ah ee loo dambeysiinayo magac ka mid ah magacyada Allah subxaanahu wa tacaala. Intaa kadib, magacyada ay tahay in loo dooro carruurta waxaa ka mid ah kuwa ambiyada lagu magacaabo, waxaana ugu wanaagsan magaca ambiyada magaca Nabigeena Maxamed nabadgelye naxariis korkiisa ahaatee, oo ah midka uunka Alle ugu wanaagsan, ama kuwa la midka ah sida Axmed iyo Maxamuud. Kadibna waxaa ku xigo ambiyada la isku dhaho ulul casmiga, kuwaas oo kale ah Muusa, Ciisa, Ibraahim iyo Nuux. Intaa kadib, magacyada ambiyada kale ee soo harta sida Yaxya, Yacquub, Yuusuf, Yuunus iyo weliba Saalex, ama loogu magac daro magacyada addoommada Allah ee suubanaa oo ay ugu horeeyaan saxaabada sida Abubakar, Cumar, Cuthmaan, Cali, Xamza iyo Mucaawiya. Intaa kadib waxaa haddana u doori kartaa magacyada kale kuwaasoo macna ahaan fiican, ama loogu magac darayo qof wanaagsan ee aan macna ahaan la reebin. Dhanka kale, waxay culimmada reebeen magacyada qaar kuwaasoo lid ku ah shareecada Islaamka, waxaana magacyadaas ka mid ah magacyada Allah subxaanahu wa tacaala iyo sifooyinkiisa u khaaska sida Quduus, Rasaaq iyo kuwa la midka ah ee aan Alle cidaan ahayn loogu yeeri karin iyadoona laga hormarinaynin magaca Cabdi, iyo sidoo kale magacyada Alle cidaan ahayn lagu darayo sida Cabdinebi amba Cabdirasuul. Waxa ayana ka mid ah magacyada reeban kuwa shayaadiinta iyo sanamyada gaalada caabudaan, iyo magacyada macnahooda aadka u xun yihiin. Haddaba daawade, waa naga intaa qaybtii koowaad ee magac bixinta carruurta, gaar ahaan wiilasha. Haddaba qaybta hoose inoogu reeb commenti magacaadi ahaan aad jeceshe. Ugu dambeynna la soco muuqaalada soo socda oo xiiso leh. Waadna ku mahadsantahay daawashadaada. Haddii aad ka heshay like saar si aan dhiirigelin uga helo, lana wadaag asxaabtaada.